waxay ku saabsanayd isxusuusinta aan isxusuusino adduunyadan kadib abaalgudka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadka u diyaariyey dadka wanaagsan ee muflixiinta ah mutaqiinta ah ee awaamirtii ilaahay raacay ee kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala qaatay oo raacay oo ku dhaqmay nabiga calayhi salaatu wasalaam waddadiisii maray waanadiisii qaatay dadkaasu waxay leeyihiin oo lagu karaameeyaa daar la yidhaahdo aljanna way magacyo badan tahay daarulnaciim daarusalaam jannaat ulnaciim jannaat ulma'wa waa daar aan lagu dhiman oo geeri jirin waa daar qof walbaa boqor yahay qof walbaa qani yahay qof walbaa uu gaar u kaaftoon yahay oo cidna aan wax weydiisanayn ila allah subxaanahu wa tacaala waa daarulkaraama aan lagu karaameeyo dadkii amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaankan adduunka kadib ku guulaystay imtixaanka هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نرشن حين نقول ما هي أدونك هي جيريدة لا يوقد امتحان لوك لا صار لوك لا أجاده يا أبو عمل ونكسن يا أبو فيعان يا أبو قاد شب بدن أمرك إلهي والراعتان بدن يا أبو لحج على بدن وحي إلهي ويبوهي يبلنت ويبوهي والرميستي oo jannadaas iyo daartaas weydiistay qofkii dalbanaya jannadaas qalbigiisay ku taal ku callaqan tahay tallaabo walba uu qaadayo iyadoo xusuusan yahay xalaale wixii ka hor istaagaya ama ka reebaya ama daarta kaleeto loo diyaariyey dadka xun dadka amarka ilaahay diiday dadka kitaabka ilaahay diiday dadka ka leexday awaamirtii ilaahay meeshii salaada la faray iyo khushuuceeda ku bedelay salaaddii inuu ilaawo aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraacuuna wayamnacuuna almaacuun ku bedeshay dadka ammaanadii khiyaano ku bedeshay ilaalinteedii dadka xalaashii la yibquudu xaaraanta ku bedeshay dadkaas daarta loo diyaariyey buu ka digtoon yahay min cadaabi rabbihim mushfiquun way ka welwelsan yihiin welwel baa haya markaa daarta ilaahay ee jannaday ku dadaalaan middanna way ka leexdaan camalka lagu gelayay ka leexdaan labada innagu midna maynaan arag laakiin waa laynooga warramay sidii aynu arkayno oo kale ayaa laynooga warramay qur-aanka kariimka qof taas doonaya oo jannadaas qaalibkeeda ah kama seexdo dib ugama dhaco gadaal isuma dhigo acmaasha la sheegay ee lagu galana meesha ugu fiican inuu ka galo buu jecel yahay maxaa lagu galaa taqwo ilaahay baa lagu galaa taqwada meesha ugu sarraysu rabaa inuu ka galo run baa lagu galaa runta meesha ugu sarraysu rabaa inuu ka galo yataxara sidq ammaanadaa lagu galaa ammaanada meesha ugu sarraysu rabaa inuu ka galo khiyaanadana ka fogaado xalaashaa lagu galaa xalaasha meesha ugu sarraysu rabaa inuu ka galo alxalaalu bayin waalxaraamu bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaat xataa mushtabihaadka inuu ka fogaado ayuu samaynayaa si uuyan u waayin jannada dariiqeeda walaalayaal labadaas daarood ayaynu ka warramaynay maalin walbana kitaabka ayay inoogu yaallaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu tusayaa waana inooga digayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala digniin weyn mid walbana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa caddeeyey arrimaheedu caddeeyey وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون كواس ويكون مقربين إلهي أكتيس الدرس كيس النقناي السابقين ويودران مر هدي عمل جنة السوق ويدقدقان أولئك يسارعون في الخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فاستبقوا الخيرات ترتن جندوا ترتن قف مقلي سيدا أي تعي وكساحلي مجرو قف مقلي سيدا أي تعي وحدنا بفلق هردبير اسكندري مجرو وإلا مو فهمين مو ينقرن ومقلي لكن قلبي سمي جري قف نارته مقلي qalbigiisa ay ku duxday waanadeedii sida ay tahayna wadadeeda ma raaco maanta walaalayaal adduunka dadkii qaflad ayaa ku badatay qafladii baa inagu badatay salaadii iyo ammaanadii waa la kala reebayaa salaadii iyo sadaqadii waa la kala reebayaa qofkii waa tukanaya ammaanadiina waa ka tegaya ammaanadii haddaa ka tagtana baabkii khiyaanadaad gelaysa runtii baa laga tegayaa haddii runtii laga tagana beentii baa la gelayaa ma jirto meel u dhaxaysa beenan leh famaada bacda alxaqi ila adalaal haddaad runtii ka tagto beentii baa gashay waa dalaalkii wey ammaanadii haddaad fududaysato khiyaanadii baa gashay khiyaanaduna waxay ka agdhowdahay naartii ammaanaduna waxay ka agdhowdahay jannadii ka walaalayaal kitaabka ilaahay markaan akhrinayno aan u dhug yeelanno halkaasaa lagu bartaa janno iyo naar waxa ay yihiin halkaasaa lagu bartaa waxaa soo raaca axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ra'ya alcayn sidii adigoo arkaysa ayaa qur'aanka lagugu sawirayaa suurad sawirada hadda marka layna tuso sawirka ma aragno kelimaadka qur'aanku waxay inoo sawireen jannada iyo naarta ayay inoo sawireen sida hadda aayadihii aan akhrinaynay ayaa ay inoogu sawiraysaa kuwa jannada ku raaxaysanaya webiyadeeda guryaheeda dumarkeeda faakihadeeda iyo kuwa naarta fii samuumin waxamiim wadillin min yaxmuu laa baaridin walaa kariim inahum kaanuu qabla dalika mutrafiin wakanuu yusiruuna cala alxinthi alcadiim walaalayaal waanadu waxa weeye aynu akhrino kitaabka ilaahay aynu kaga waana qaadanno alraqbatu fi ljanna jannada dalabkeedu waxay keentaa daacaday kordhisaa cabsida naartuna waxay kordhisaa daacada ilaahay iyo xumaanta inaad ka leexato ka fogaato labadaas waa laba sababood oo camalkaaga adduunyada ka muuqanaya sida aad u cabsato naarta camalkaagay ka muuqanaysaa la dhaqankaaga dadkay ka muuqanaysaa ammaanadaaday ka muuqanaysaa runtaada iyo beentaaday ka muuqanaysaa ilaalintaada xuduudda dadka ayay ka muuqanaysaa muxaramaadka ilaalinteeday ka muuqanaysaa xuquuqda dadku leeyihiinay ka noqonaysaa kan noqdo kan kuu shaqaynayo ugu dhow shaqaalaha kuu ah ama khaadimka kuu ah ama durayolka kuu ah oo mushaharkiisa xuquuqdiisa saacadda ay waajibto farta inaad ka saarto addi alajiira ajrahu qabla an yajifa caraquhu inta aan dhididkiisu qalalin xaqiisa sii baa la leeyahay xadiiska dadka qaar baa bilo iska daadsada ayaamo
iska daahiya ma aha inay khasnada kugu jirto ma aha hal maalin khasnadaada iyo akoonkaaga kuma baaqi noqon karto haddaadan ka hormarin ha ka dibdhicin waa tusaale taasaa ka mid ah wax kastoo xuquuqa xaaskaaga ilmahaaga reerkaaga walaalaha deriskaaga shurakadaada dadka wax kula wadaaga dadka wax idinka dhaxeeyaan ama ganacsi ama xoolo ama wax kale ha noqoto kullu waxa weeye inaad is ilaaliso taasaa jannadana lagu galaa naartana lagaga badbaadaa ilaahay tawfiiqdiisa hayna waafajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeena dembiga waalidiinteenba ha dhaafo inta xanuunsan oo walaalkaas xaaskiisu ka mid tahay allah caafiyo allah u fududeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta meel kastoo joogaan nasri iyo guul allah siiyo dhibtana allah ka dulqaado cibaaraha allah ka dulqaado dagaalada iyo colaadaha allah ka dulqaado إلهي سبحانه وتعالى نحريسي جنوي أمني دقناني برواق الله بدله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه